oo si kooban aan uga hadlo anigoo waqti cunayn shaqada warbaahinta dadku inta badan ma fahansana waxay isku yihiin nin microphone sito baa loo yaqaanaa laakiin sidaas ma aha shaqada warbaahinta waa waxyaabaha inagu cusub oo ma aha dadka uu madax iyo mijo shacab way yar yihiin cid fahansan sababta iyo baahida aynu qabno doorka ay noogu jiraan iyo waxaynu isku nahay marka waxa weeye haddaad aragtay qof walba nolosha door buu kaga jiraa nin baa baranaya caafimaadkii haddana muxuu ka sii baranayaa isha laga yaabaa muxuu ninkaasi ummadda uga shaqeeyaa ishii way yar tahay kuma lihi laakiin hal meeloo keliya ka shaqeeya oo odhan maysid kaale ay soo xisaabayeen sicir bararku muxuu ku yimi wax ka weydiin maysid oo dhaqaalayahan maaha moogta wax ka weydiin maysid teknolojiyadii kale IT wax ka weydiin maysid beeraha sida loo faray wax ka weydiin maysid ummadda ilaahay markaad eegtid qoloba meel gaar ah ayay kaalinta ka buuxisay laakiin saxaafaddu waxay kaga duwan tahay wax walba way buuxiyaan xil aanay hayn qofka wariyaha ah idinku meelaha aad u aragtaan qof microphone iska sitaa ma jiro xil aanu hayn macal quraanjadaasaa sheeko gelaysa oo xaqeeda laga hadlaya biyo la'aantaad marka hadlaysaa waxaad ka hadlaysaa beerahaad ka hadlaysaa iyo sababta ay maaragtay dadkii wax u beeran laayihiin waxaad ka hadlaysaa gabayadii waxaad ka hadlaysaa heesihii waxaad dadkii waad wacyi gelinaysaa waxbaad baraysaa xogogaal baad ka dhigaysaa oo waad magaranaysaa xog baad siinaysaa ummaddii waad dhisaysaa intaaba waxaa dheer haddana isla xisaabtankii oo waa muraayadii dhammayd ay dadku iska daawanayeen waxaa iska daawanaysa habaryarta eddada walaasha tiirayda jacaylku hayay kii odayga ahaa oday dhaqameedka ahaa wuxuu ku leeyahay maad shirka iyagii jirayd sii deen xaq buu leeyahay soo ma marka qof ummadda oo dhami waa macnaasa hablood buurahaasana sugayeen warbixin ka soo sameeyay xaq bay u leeyihiin markooda la soo hadal qaado somaad garan marka waxa weeye mas'uuliyad ballaaran bay horta warbaahintu hayaan dhibka jira waxa weeye bulshadii oo bislayn iyo wariyaasha laftigooda bulshadii kamid ah oo laga yaabo in badan inay ma garanaysaa ayna garanayn reasonka ay wariyo yihiin inkastoo marba marka ka dambaysta la soo korayo marka heestan markii aan qorayay ethics-ka saxaafadda akhlaaqiyadka saxaafadda ayuun bay ka hadlaysaa inaanu qofku wuxuu yahay waliba si kooban bay uga hadlaysaa erayadeedana waxa kamid ah anigu cidna uma xagliyo xukuumadda lama safani xisbina weligay ma gelin xer gaarana uma shaqayn waxaan ahay wariye xora dadkan xulafaysanahay dareenka xanuujiye xiskooda shucuubta muda xurtoon iyagoo ahaa afkooduna uu xidhnaa anaa xay oo u nool waxaan ahay wariye xora dartaa xabadaa i dila xabaal baan kuu galaa adaa lay kaa xidhaa xabsiga lay kaa dhigaa miyaanan bulshay xurmayn xushmiyi sharafkaa mudnayn haddii uu xila balaalintuu xada maatadii xilkooda u dhiibatee lahayd xijiyo adkee xantoobada uu daldalo anaa xaashida ku dhiga awoodaha lagu xagliyo awoodaha fala xumaan awoodaha gala xadgudub anaa la xisaabtamoo anaan xaashee ka hadhin xogtoodana soo bandhiga dharaar xirfadayda maal xooliyo dheef kuma bedelan anuu kuma xoogsadee adaan xakab iyo dhigiyo xayndaab adag ku aho waxaan ahay wariye xora sharciga waan xeeriyaa xadkayguna waa dastuur intaan xaraf beena qoro xanaf uma yeelo ruux xariir oon eed lahayn waxaan ahay wariye xora wariye xuuraamo oo waraysto xoogtaan ahoo dad iyo xoolaba ka qora xaqooda la duudsiiyo xaqiiqada raadiye miyaanan bulshay xaq dhowr xushmiyo sharafkaa mudnayn markaa heesta waa sababtan u dabagalay oo maaragtay aniguna inkastoo fanaaniinta laygu tiriyay inaan aqaano haddana aad uguma xidhnay maalintaasaan dabagalay tacab badan baa iga galay way soo baxday laakiin nasiib darro heesaha aan aad loo dhegaysan bay ka mid tahay su-aashaana idinkaa is weydiin doonaa صديق محمد برماد صحفيga abwaanka dhab ahaantii wuxuu ina dareensiiyay caawa saxafiga dhabtii wuxuu yahay saxafigu kaalintii noogu jiro dhammaan warbaahinta jamhuuriyadda Somaliland waxaan leenahay aad baad u mahadsantihiin idinka ayaa dalku wuxuu leeyahay waaxda sharci dejinta waaxda garsoorka waaxda fulinta idinku
waax afraad oo kale oo waddanka ayaa tihiin dhammaan waaxahaas waxay qabanayaan iyo bulshadaad ka dhex adeegtaan saxafigana inaan loo qaadan inan yaroo microphone sita ama inan iska socota ee saxafigu waa qofka qiimaha leh abwaanka waan uga mahad celinaynaa heesta magaceeda la yidhaahdo muwaadin cashuurta dhiib oynu bandhigii carwada bugaagta hargeysa isla halkan sanad ka hor habeenkii u dambeeyey xidigaha geesku inoo qaadayeen oo ka hadla sidee wax lagugu qabta adna cashuur dhiib abwaan heestaana naga dabagee way aad iyo aad baa umahadsan tahay laba kelmadood baan ka dabageynayaa moogtay tii warbaahinta platformyada noociinin oo kale inay nala mid baad tihiin oo idinkaa maalinba cid u yeedhaya garyaqaan u yeedhaya dhalinyaro u yeedhaya hooyooyin u yeedhaya intuna haynaba waad haysaan markaa dee isku darsin baynu nahay soo maaha ta kale meesha taalla doonaya inaan dadka xasuusiina suxufi wanaagsan haddaad doonaysaan oo maadaama wax badan isaga kayn dhex qaldan yihiin suxufiga wanaagsan maaha qof cid caashaqsan tahayba taa ogaada waayo nin runta sheegaya maalin qoladan ka xanaaqay maalin qolada maalin habaryar ka xanaaqaysa maalin urur baa ka xanaaqaya maalin xisbi baa ka xanaaqaya isagu laakiin mas'uuliyadu gudanaya laakiin haddaad aragto nin garab iska jecel yahay ama qabiil iska jecel yahay ama xisbi iska jecel yahay dee dhinac buu ku bisil yahay marka horeba waa aafayeen xisbi taasina waa taa maaragtay heesta cashuurahan idinka dabageynayaa marka heesaha wadaniga ah waxaan is idhaahdaa uun dee heesana waa jacayloo dhallinyaradii baa u baahan oo xitaa cidi ku dhegaysan maysa haddaanad odhan heblaayo waan meelihii aanad ka hadal meelana waa muhiimo inaad ummaddii wax contribution wax ku darsato dhismihii ummadda hadday u baahan tahay soo maaha kuwaasoo kalena dad badani ma daneeyaan laakiin haddana aniga waa kuwa iga muhiimsan tanaana ka mid a dadka qaar baa waxay igu idhaahdaan malaha ilaa 4 heesood oo cashuuraha baan sameeyo waa nin imsaad ku qaadataa wallaahi inaanan $1 heesaladii weligay dhadhamin oo soo maqlimaysaan xitaa niyaddana kuma hayo laakiin mas-uuliyadda qofku inuu doorkiisa guto ilaahay wixii uu kuu qoray maaragtay geed hoostiiba waa laga helaa waxna inagama maqno imanka nimca ku jirnaa laakiin waxaad geysanayso wax walba dee macaash lagama raadiyo heestan si aan dadka ugu dhiirigeliyo inay cashuurta iska bixiyaan oo iyada laftigeedu waxyaabaha aynaan u bislaynaa u bislaynka ka sokowna caqabado badan ay jiraan sababaha ay u bixin lahayihiin iyagii weli aan fahmin cashuurta laftigeeda sidii wariyaashaan idiin lahaa maxaad isku tihiin cashuurtan ay bixinayso waxay isku yihiinna ayna garanayn baan doonayay inaan u sheego qofkan inuu cashuurtan fahmo si uu bixiyo marka isagaan la hadlay halkii aan ka odhan lahaa cashuurta saas iyo saasaa la sameeya isagaan ka dhex tusay interestkiisii dabadeedna waxaa ku jiray caruur aflaxdaad rabtaa culuum la baraad rabtaa waddooyin caqiibo oo culaysa waddooyin caqiibaloo cusayba ayaad rabtaa haddii cudur iyo xanuun ciday kaa soo ritaan adeegyada caafimaad oo caawiya baad rabtaa intaad ku canaanan layd cid kale howlkaa qabya ah adaa ceebteeda lee cashuurta muwaadin bixi si aan cidna kuu dulmiyin awood kaa caabidiyo damaanad cad baad rabtaa cadaaladna waad rabtaa inaanad cabsoon mar qura dalkana jira ciidan qaran cadaawana kaaga filan cududlana waad rabtaa intaad ku canaanan layd cid kale howlkaa qabya ah adaa ceebteeda lee muwaadin cashuurta bixi maxaad u camaalaqdaa carrada waad leedahay cuudkaaga wixii ka go'a ku biiray dalkuu cisee qofkiisa canaatamee ka sii cagajiidayay sharcigu cid ma dhaafayee ma jeelkaad liinta ku cabbi bayn lahnaa markaa meeriskaa idinkaa ku darsan doona waa hanjabaad yacnii dee arrimaha qaarkoodna waa gar qofku wixii ummaddu ku heshiisay haddii uu ka soo bixi waayo waa inuu jiro tallaabo laga qaadayo abwaan intaynaan ka bixin cashuurta heestani iminka aad bulshada ku jalbeebisay waxay dabada ku haysaa tiro heesoo qaarna soo baxeen oo ka hadlaya cashuurta hees taxidiguhu qaadaan in hore u magacownayna isna albankan cashuur bixinta ee ayay qayb ka ahayd
bal heestaasi maxaad ka yar tilmaami waatee dhex joogaha liita dhex joogaha liita ini aanu meel kuma kaydsadee saa ugu yara jira haddaba idinkuna boostigii aan soo dhigay un baan dib u baraa moogtiin waan helaynaaba waaba ninkaasaba iga gacan horreeye intaasay odhanaysaa iminkaad maqlayseen dhex joogaha liita intuu dharga seexda dhalaalkana doona dhaliishana sheega cashuurta la dhunta wallee dhalad maaha waddani dhaba maaha waddada dhinaceega dheexaynu wadhnayna si loo dhiso suuqyo sariibada dhowrsan waddooyin dhammaanba hargeysa dhex qaada muwaadin ku dhiiro inaad dhinacaaga cashuurta ka dhiibto haddii